بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ولا ليال waxaan idinku hambaliyaynayaa munaasabadda ciidda Carafa. Ilaahay ha inooga dhigo mid barakaysan oo aan ku wada ciidno si farxad leh, rayn leh. Waxaan Allah ka baryayaa inuu naga aqbalo acmaasha iyo cibaadaadka suban. Waxaan Alle uga baryayaa kuweennii xajka aaday inuu u fududeeyo safarka, ka aqbalo acmaasha wanaagsan, nabadgelyana ugu soo noqdaan deegaanadoodii iyagoo ku guuleystay dambi dhaafka Allaha weyn. Maanta oo kale nabigeena soo banaay nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa istaagay banka weyn ee Carafa, kana jeediyey khudbadii caamka ahayd ee dardaaranka uu ummadaha islaamka kula dardaarmayay. khudbadaas oo loo yaqiinay khudbatul wadaac. walaalayaal, maanta oo kale waxaan mudannahay inaan isxasuusino dardaarankii nabi Muxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee oo mar kasta na fari jiray. dardaarankaas oo ahaa in qofka muslimka ah dhiiggiisa, maalkiisa, sharafkiisa iyo karaamadiisa ay yihiin xaaraan lama taabtaan ah. maanta kooxda khawaarijta ah waxay bannaysteen dhiigga iyo dhibaateynta dadkeena Soomaaliyeed oo ku midaysan diinta islaamka ah. xataa maanta oo malaayiin muslimiin ah ay taagan yihiin banka Carafo oo dhammaan gacmahooda kor u taagan yihiin ayagoo Ilaahay ka baryaya inuu u dambi dhaafo, ayaa khawaarijtu ay daadinayaan dhiigga abriyada muslimiinta ah. waxaa wax lala sii fajaco ah in kooxda khawaarijtu ay ku adkaysanayaan kuna faanayaan inay daadi karaan dhiigga qofkii camalkooda foosha xun diida in uu la qaato. walaalayaal, khawaarijtu waxay caqabad ku yihiin dib u dhiska dalka iyo helitaanka adeegyada aasaasiga ah ee shacabka Soomaaliyeed baahida u qabaan, oo ay ugu horeyso baahida bani aadamnimo ee ay iyagu sababeen. waxay khatar weyn ku hayaan jiritaanka madax bannaanida dalka, iyaga oo horseeda baahiyo Soomaaliya ay ka maarmi kartay. haddaba maalintan farxadda leh, dhalinyarada Soomaaliyeed ee ay mareen habaabiyeen khawaarijta waxay haystaan fursad inay ka soo laabtaan habowga oo ay cafis weydiistaan dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda. sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqayaa dhalinyaradaas, waalidiintood iyo cid kasta oo u caqli celi karta in ay u cadayso in ay weli haystaan fursad ay dib ugu soo noqon karaan dadkooda iyo deegaanadooda, kana qayb qaadan karaan dib u dhiska dalkooda. dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal, inkasta oo ay jiraan caqabado iyo waqtiyo adag, maanta waxaan ka dheregsannahay in wadadii dowladnimada aan ku sii soconno. dowladda Soomaaliyeed iyo shacabkeeda oo kaashanaya saaxiibada caalamka waxay gaareen in aan ku biirno golaha ammaanka ee qaramada midoobay. 2 in laga qaado dalkeena cunaqabateyntii hubka ee in ka badan 30 sano saarnayd. 3 in laga cafiyo dalkeena deyntii uu caalamka nagu lahaa. 4 waxaan ku biirnay suuqa ballaaran ee bulshada bariga Afrika. 5 waxaa socda dadaallo lagu dardargelinayo soo saarista kheyraadka dabiiciga ah ee dalka si dalkeenu isku filnaansho dhaqaale u gaaro. 6 dowladdu waxay xoogga saartay kor u qaadista dhoofinta wax soo saarka dalka. sidoo kale dowladdu waxay xoogga saaraysaa mashaariic waaweyn oo haddii alla yiraa kor u qaadi doono wax soo saarka, shaqo abuurka dhalinyarada iyo guud ahaan kobaca dhaqaalaha dalka. walaalayaal, dimuqraadiyeynta dalka waa tiir muhiim u ah horumarka iyo dowlad dhiskeena. suurtagal ma aha in 30 sano ka badan shacabka Soomaaliyeed ku dhaxayna xayndaabka amni darrada, doorasho dadban iyo dastuur qabi ah. dadka Soomaaliyeed waxay mudan yihiin dowlad casri ah
oo la jaanqaadi karta caalamka ee ma mudna mid ka hooseysa halbeega caalamka isku raacsan yahay ee dowladnimada. dalkeena iyo dadkiisaba kuma sii sifaysnaan karaan bartiyaqaan bari uma kororto iyo jugjug meeshaadi joog. waa in shacabka Soomaaliyeed helaan fursad buuxda oo ay uga qayb qaataan go'aanka gaarista masiirkooda. bishii Juulaay ee sanadkii 2023 aniga oo xafiiska jooga muddo sanad ah waxaan isugu yeeray kulan wada tashi ah madaxdii hore ee dalka. ujeedada kulankaas waxay ahayd in aan dhageysto talooyinka iyo aragtiyadooda ku aadan sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ah khawaarijta iyo dardargelinta dowlad dhiska. gogoshaas waxaan fidiyey iyadoo aanay doorasho dhoweyn si aan wada tashi uga yeelano arrimaha masiiriga ah. wixii intaas ka dambeeyey waxaa horumar laga sameeyey hanaanka dimuqraadiyiinta dalka iyadoo loo maraayo hay-adaha dastuuriga ah iyo la tashi ballaaran oo dalka intiisa badan la soo maray. waxaan mar kale si rasmi ah ugu baaqay gogosha wada tashiga siyaasiyiinta iyo hogaamiyayaasha bulshada taas oo ka furmi doonta Muqdisho 15 Juun 2025. walaalayaal, albaabka wada hadalka iyo tashiga waa furan yahay, mar walbana wuu furnaan doonaa. wada hadalka, isu tanasulka iyo xurmeynta xeerarka dowladnimadeena waa dariiqa kaliya ee aan ku gaari karno higsigeena dowladnimo iyo horumar waara ah. maanta inooma furna waddo aan ka ahayn inaan dadkeena ka xoreyno khawaarijta iyo inaan u jahayno waddo cusub oo ku dhisan garasho, damiir iyo dan qaran. walaalayaal, maalmaha farxadda leh awgeed waxaan hambalyo gaar ah u dirayaa ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanada dalka ee loo yaqaano macuusleyda oo u taagan difaaca ummadnimadeena, dowladnimadeena, diinteena iyo karaamada ummadeena. waa soo jeedkiina, foojignaantiina iyo nafhurnimadiina sababta aan si farxad leh ugu ciidayna maanta. shuhadadii naga geeriyootay Allah u naxariisto, kuwa dhaawaca ahna Allah inoo bogsiyo. waxaan baaq u dirayaa walaalaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan in ay ka faa'iideystaan maalmaha barakeysan ee ciidda oo ay iscafiyaan, isu naxariistaan, oo aan xasuusano kuweena taagta daran iyo kuwa agoonta ah. waxaa Ilaahay ka baryayaa in ciidan iyo ciido kale oo badan uu nagu gaarsiiyo annagoo nabad ah oo dalkeena ka xoreynay khawaarijta, isla markaana gaarnay horumar la taaban karo. dhammaan walaalaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay maalmihii wacnaa way soo socdaan. ciid mubaarak, كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.